madaxdaas waxaa si shakhsi ah ugu afduuban Jubbaland muddo dheer mar raba afduubka inay aad u sii fasiro seeyahay laakiin afduub dhaqaale afduub siyaasadeed afduub amni afduub intaba waa jira afiican inaan jeclaan lahaa inaan xusuusiyo walaalkay siilaaya Allahu naxariistee xukunkii waa ka tagay nin Muuse la yiraahdo yimid nin Cirra la yiraahdo haduu yimid Farwala wuu tagay Abdiwelina waa tagay Saciidkii koobaad baa tagay Saciidkii labaadna wuu joogaa Cabdikariim Xuseen Guulad waa tagay Xaaf waa tagay Qoorqoor nin la yiraahdo jooga Ali Cabdullaahi Cusub waa tagay Maxamed Cabdiwaar waa tagay Ali Guudlaaw nin la yiraahdo jira Shariif Xasan Tag lafta garan nin la yiraahdo jooga Xasan Sheekhi hore wuu tagay Farmaajo yimid oo tagay Xasan Sheekhi kala jooga waxaan leeyahay marka haddaan guga kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ilaan wax ma dhaantid geed sida dastuurka Jubbaland qabo qodobkiisa 7aad oo aad dastuur aad loo bedelay laakiin qodobada yar ee nabad galay uu ku jiro qodobkaas madaxweynaha waxaa u furan oo kaliya u banaan inuu 2 jeer xilka qabto labadii jeer iyo in ka badan waa dhamaatay sidaa darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna maalmahan waxay qayla ka soo yeeraysaa maamul goboleedka Jubbaland maxaa keenay qayladaas waxaan ogsoonahay in madaxda Jubbaland ay horseed ka ahaayeen dhammaan go'aamadii ka soo baxay madasha wadatashay qaran ee dalka loogu jihaynayay doorasho qof iyo cod waxay saxiixeen dhammaan heshiisyadii arrintaas lagu go'aaminayay oo si gaar ah ugu xusnaa in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod in la dhiso hal guddi oo qaran oo loo yaqaan guddiga qaran ee doorashooyinka iyo sohdimaha guddigaas oo qaban doona dhammaan doorashooyinka dalka in dalka laga sameeyo xisbiyo siyaasadeed iyo in la mideeyo doorashooyinka dawlad goboleedyada madaxda maamulku waxay si mug leh uga qayb qaateen ansixinta labada aqal ay ansixiyeen arrimahaas aan kor ku soo xusay haddaba markii la soo gaaray fulinta heshiisyadaas oo qaarkood ama inta badan bay isu bedelay arrimo dastuuri ah maadaama ay labada aqalba saxiixeen madaxweynuhuna saxiixay labada aqalba u codeeyeen madaxweynuhuna saxiixay ayay diideen inay fuliyaan isla markaana ay ka kaceen gogashii qaran ee madasha qaranka waxaan ku bixinay dadaal kasta oo aan isku dayayno in aan ku soo celinno madaxdaas gogasha qaran annagoo diyaar la ahayn mar walba oo caqli celin tanaasul iyo soo dhaweyn waxaan hakinnay shirki socday muddo si aan ugu soo qancinno waxayna nagu qaatay shirkaasi inuu socdo 30 beri oo xiriir ah waxaa runtii noo caddaatay in madaxdaasi ay ka go'an tahay inay fuliyaan ajenda kale oo aan ahayn ajendihii ay shacabka Soomaaliyeed ilaahay hortiis
heshiiska kula galeen ayagoo saxiixay heshiiskaas ama heshiisyadaas kuwaas oo uu kow ka yahay qodobka koobaad ama wejiga koobaad u yahay inay ka baxaan NCC madaxdaas waxaa ka go'an inay fuliyaan ajendayaashaas oo ugu horeeyo inay ka baxaan taladii qaran ee ay qaybta ka ahaayeen in hoggaanka Jubbaland uu isku carashubo iyo in la isku dayo in la rido xukuumadda dan qaran hoggaanku wuxuu abuuray narrative halisa oo oranaya waxaa maqan deegaanada dalka qaar waxaan soo xusuustay sheekadii ahayd saddexdii nin ee kii indhaha la'aa indhoolaha iyo kii dhagaha la'aa iyo kii lugaha la'aa ee kii indhaha la'aa uu yidhi kii dhagaha la'aa uu yidhi shanqar baan maqlaa uuna dhagalayahay shanqar baan maqlaa buu leeyahy si uu dhaga u helo si uu wax u maqlaso inuu dhaga leeyahay ma kama horrayn haddii deegaanadaas lagu daysanayo ama la rabo in la yidhaahdo waa la tabay haddii la rabo in la tabo waa in horta meeshooda la gaaro deegaanka la tabsan yahay ee bannaanka laga sheegay waa deegaan dadkiisu ay registered yihiin oo dhammaantood intii doorasho rabtay ay qoran yihiin ID cardna ay haystaan axsaab siyaasadeedna ay haystaan local governmentigiina oo dhanna ay doorteen oo ay dhisteen way marka si aad u tabto oo waxaad sheegaysaa ay sax u noqoto horta meeshaa soo gaad haddii kale waxaad noqonaysaa ninkii dhagaha la'aa ee yidhi shanqar baan maqlay waxaa ku xigtay in la leeyahay reer hebelow haddii doorasho la qabto dalkaa laydinka qaadaya doorasho qof iyo codi micnaheedu waxaa weeye ka dareera dhulka waa laydinka qaxaynaya dhulka dad kalaa imaanaya dhulkiinaa laydinka qaadaya waxaan soo xusuustay sijaalkii ama doodii dhex martay nebiyullaahi muuse iyo fircoon oo fircoon qaala almalaw min qowmi fircawna ina haadaa la saaxirun caliim qoladii madaxda ahayd ee fircoon saaxiibadiis ahayd muuse waxay ku yidhaahdeen kan waa sixir saaxiroole diib ah oo sixirnimadiisu uu aad u xeel dheer tahay weye waxay ku sii dareen yuriidu an yukhrijakum min ardikum bisixri wuxuu rabaa dhulkiina inuu ka kaxeeyo asna maxaa loo soo diray inuu xoreeyo ummadda nebiyullaahi muuse inuu dadka xoreeyaa loo soo diray ayaguna waxay leeyihiin dhulkiina inuu ka qaato o idinka kaxeeyuu rabaa qisadu isu ekaa annagu waxaan rabnaa dadku inay xoroobaan oy codkooda ku codbixiyaan cidday rabaan cod siiyaan asna wuxuu leeyahay dalkiina laydinka kaxaynaya say isu qabanaysaa
madaxda maamulkaasi waxay ka baxeen ballankii ay ilaahay iyo ummaddan la galeen waxay ka baxeen ballan aniga ay la galeen si gaar ah oo markhaatiyo leh sidaa darteed waxba laguma aamini karo waxaad ogtihiin madaxdaas waxaa si shakhsi ah ugu afduuban Jubbaland muddo dheer mar raba afduubka inay aad u sii fasiro see yahay laakiin afduub dhaqaale afduub siyaasadeed afduub amniye afduub intaba waa jira hoosna uma sii gelayo dulqaad badan bay qabaan dadka reer Jubbaland dulqaad badan bay qabaan wiilasha geesiyaasha ah ee saraakiisha ah askarta ah ee reer Jubbaland oo aad ogtihiin hadda laga sheekeynaya hal meel inay dhigaan 135 khawaarij ah oo maalin walba sidaas u baabi'iya ayagana dhib badan loo geysto wiilashaasi way afduuban yihiin maxaa jira waxaa loo diiday inay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed xuquuq ka helaan ayagoo halkooda jooga waxaa loo diiday inay ciidamada hay'adda nabad sugidda ka mid noqdaan markhaati bay leedahay waxaa loo diiday in ay nambarro qaataan oo ay xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid noqdaan in badan oo ka mid ah waxaa la diiday saraakiil la yaqaan oo qiimo leh oo sharaf leh oo ayaga ka mid ah in la dalacsiiyo markhaati bay leedahay askarigii iyo wiilka qiimaha badan ee geesiga ah ee 21 sano madaxdaas daba socday kolba si ay u daba socdaanba oo ilaalinayay still waa dable hal darajo ma haysto miyaysan afduub ahayn waa afduub haddii marka ay wiilashaasi afduuban yihiin geesiyaasha ee micnaha leh haddii odayaashii afduuban yihiin oo ad hoc odayaal ay yihiin ad hoc waxa la dhahaa dad mar la isugu yeero markaa deedna shaqo laga qabto kadibna la iska sii daayo oo mar dambe aan shaqo kale loo dirsan ad hoc kaale halkan mar imaada waxa ay sameeyay iska taga hadday cid waliba afduuban tahay afduubkaas intaas ay jirtay laakiin uu iskaba dee meel keliya un ay ahayd ama goob keliya ay ahayd dhibaata waxay timid markuu yidhi waxaan rabaa in qarankii kalena masiirkiisa laga afduubo oon anugu afduubto oo la igu daro oo yidhaahda doorasho ma dhacayso doorasho dadban waxaan ahayn ma dhacayso marka waxaan leenahay mudane masiirkii ummadda Soomaaliyeedna kuuguma dari karno afduubkaas waxaa fiican inaan jeclaan lahaa inaan xusuusiyo walaalkay siilaaya Allahu naxariistee xukunkii waa ka tegey nin Muuse la yiraahdaa yimid nin Cirra la yiraahdaa hadduu yimid Faroole wuu tegey Cabdiwelina waa tegey Siciidkii koobaad baa tegey Siciidkii labaadna wuu joogaa Cabdikariim Xuseen Guulad waa tegey Xaaf waa tegey Qoorqoor in la yiraahdaa jooga Cali Cabdullaahi Cusable waa tegey Maxamed Cabdi Awaar waa tegey Cali Guudlaab in la yiraahdaa jira Shariif Xasan Teg lafta garan in la yiraahdaa jooga Xasan Sheekhi hore wuu tegey Farmaajo yimid oo tegey Xasan Sheekhi kala jooga waxaan leeyahay marka haddaan guga kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ilaan wax ma dhaantid geed sida dastuurka Jubbaland qabo qodobkiisa 7aad oo aad dastuur aad loo bedelay laakiin qodobada yar ee nabad galay uu ku jiro qodobkaas madaxweynaha
waxaa u furan oo keliya u bannaan inuu 2 jeer xilka qabto 2dii jeer iyo in ka badanna waa dhammaatay sidaa darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna processka Kismaayo ka socdo ee madaxweynuhu wado waa sharci darro waxa ka dhashaana waa sharci darro hal xaaraanihina nirir xalaala ma dhasho mana la aqbali karo waxaan ugu baaqayaa dadka reer Jubbaland in ay tashadaan kana tashadaan sidii uusan u dhici lahayn firaaq siyaasi ah ciidamada amniga ee kala duwan waxaan ugu baaqayaa inay ka fogaadaan siyaasadda si professionalna ay shaqadooda u qabsadaan difaacaan dalka lana jihaadaan oo la dagaalamaan cadowga oo ay joogaan furmahooda ilaaliyaan nabadgelyada shacabka walaalkay waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda waana dambi aan la isooga hari doonin hadday dhacdo waxayna keeni doontaa hadday dhacdo burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddada dheer la soo dhisayay waxaan guud ahaan reer Jubbaland ee ugu baaqayaa inay ilaaliyaan midnimadooda nabadooda iyo xasiloonaantooda in ay taageeraan dadaalka ay dawladdu wado dawladda federaalka wado ee ay ugu jirto sidii ay awoodooda ugu soo celin lahayd isla markaana ay u exercise garan lahaayeen powerkooda si ay u doortaan madaxdooda si xor iyo xalaal ah waxaan diyaar u nahay in aan tagno deegaanka kana qayb qaadanno isu keenida dadka maslaxayntooda midayntooda iyo walaalayntooda isla markaana aan ka ilaalinno wax kasta oo keeni kara inay dhacaan qalalaaso iyo qulqulitooyin aan loo baahnayn aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh